wardegdega qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho agagaarka hotel Wehliye qarax ayaa jugtiisa waxa inta badan laga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir waxaana uu ka dhacay agagaarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho wararkan helayno ayaa waxa ay sheegeen gaari uu qaraxaasi laga soo buuxiyay lacag dhigay maqaaxid lagu magacaabo Filsan oo u dhow hotel Wehliye isla markaana uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac halkaasi ka dhashay uura ayaa qaraxa kadib cirka isku shareertay taas oo inta badan degmooyinka gobolka Banaadir laga arkayay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa gaaray goobta kuwaas oo xiray wadooyinka soo gala meesha uu qaraxaasi ka dhacay ilaa iminka lama helayo faahfaahin dhab ah inta tira ee ku waxyeelowday qaraxaasi halkaan naga daawanaysaan waa Hiiraan TV fadlan subscribe saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee gudaha Soomaaliya ee caalamka